xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley ayaa ka hadlay faragelin ay sheegeen in xildhibaanada golaha deegaanka Saylac ay ku sameeyeen shaqaalaha wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ee ka howlgala kastamka Saylac waxayna ugu baaqeen in dadka kala soocin ay isku soo dhaweeyaan wax looga yaabo arrinta ka socota gobolka Saylac shaqaalaha ka shaqeeya wasaaradda maaliyadda oo runtii arboodsin hab qabiiliyad oo falxun uga hadleen mar xildhibaan oo waliba qaarkood saaxiibnahay sida Maxamed Ahriyo Masar Wajaale iyo Mustafa Tiifiyo iyagoo xildhibaana inay ummadda u horseedaan wax dowladnimada ceeb ku ah xildhibaanku waa inuu ka xishoodo wixii aan xeerku u banaynayn inuu dadka ku abaabulo waxaan aad iyo aad ugu hambaleynayaa wasaaradda maaliyadda Mr. Sasad Cabdi Aadan inaanay u dhageysan dadka qabiilka hadlaya shaqaalaha meesha doontaan ay geyn karto oo kala baydh bay joogaan nimo Saylac u dhashay anagoo soo dhaweynaa waan la shaqeynaynaa waan shaqaale dawladeed uma aragnay inuu reer yahay waxaan marka uga digayaa xildhibaanada inay ka wartoogaan shaqaalaha dawladda ee wasaaradda maaliyadda ka shaqeeya gobolka Saylac ee reernimada ku yareynayaan in dadka la kala sooco inooga qurux badnaa ummadda waxa weeyaan in la isku soo dhaweeyo oo ummaddu isdhex gasho ayaa loo baahan yahay markaasi arrimahaas ay ku kacayaan xildhibaanadaasi aad iyo aad baan uga xunnahay waa inay joojiyaan arrimaha noocaas gafka ah ee ku gafka ah shaqaalaha dawladda haddaan ka hadlo arrinkan xildhibaanada annagu waxaanu nahay xildhibaano la soo doortay meel kastoo aan joogno haddaan Saylac joogno haddaan Ceergaab joogno iyo haddaan Laascaanood joognaba waxaanu nahay dad ay soo doortay bulshada reer Somaliland oo matala bulshada Somaliland sidaa darteed waxay nagu tahay sharaf darro inaan anigoo xildhibaana ama xildhibaanay la midii uu wax kala faquuqo oo dawladda dhexe iyo shaqaalihii wasaaradaha fargeliyo oo ilhaayeen kala faquuqayeen waxaan oran lahaa xildhibaano ayaynu wadanahay dadkuna waa isku keen mid yaa markaa maadaama ay dawladdu bari iyo galbeed isku mid yihiin waa shaqaale dawladeed dawladdan waxa loo baahan yahay in qabiil maaha shaqaalaha dawladdu qabiil maaha waxay xaq u leedahay inay qofba meeshii ay garatay iyadoo ay geyso iyadaana xaq u leh haddii arrinkaad ka digtoonaan weydaanna idinka ayay idin saamayn doontaa iyadaa xaq u leh inay beddesho galbeed jooga inay bari geyso koonfur joogana waqooyi ay geyso waa xaq dastuuriya uu dastuurku siiyey marka waxaan leeyahay aad u laleecaynaa dhawaaqaa ka soo yeedhay golaha deegaanka ee Saylac Mukhtaar Nuux Ibraahim Hoon Cable TV gobolka Gabiley